ka wada aragteen waxaynu maanta daha furaynaa exhibition amba bandhig ku aadan lascale lascale waxay tahay sooyaalka dalkan jamhuuriyadda somaliland sooyaalkiisa badan bay ka mid tahay waa mid sooyaalada amba sooyaalka somaliland ka mid ah amba heritage-ka somaliland somaliland waxay leedahay qaybo badan amba tiro ciidda ka badan oo heritage site ah laakiin lascale waa tii ugu horreysay la helay amba la arkay markaa taa inaynu xafidno aynu ku deganaano aynu daryeelno runtii waxay u tahay ahmiyad weyn amba muhiim waxay u tahay ummadda dalkan ku nool waayo lascale waxaa lagu tilmaamaa inay 3,000 inta u dhaxaysa 5,000 ilaa 9,000 oo sannadood ay ka hor dhulkaasi jireen markaa ummadda taariikh ku abtirsanaysa amba leh 5,000 oo sannadood 7,000 oo sannadood ka hor in laga joogo dee waa ummad qaniya markaa waad aragteenoo masaaridu dee pyramidska iyo dhulka heritage siteyadooda maanta hantida ugu weyn ay haystaan weeyaan warshado ma laha wax kale ma sameeyaan turismigu waa sectorka amba qaybta ilaha dhaqaalaha amba isha dhaqaalaha ee kuwooda ugu waaweyn ka mid ah ee GDP-gooda amba dhaqaalahooda kaaba ayay ka mid tahay innaguna waxaan annagu xarun ahaan xarunta dhaqanka ee Hargeysa waxay aaminsan tahay inay lascale iyo kuwa kale la badan ee ka mid ah dalkeena Somaliland gobolada ku taxani ay sida pyramidska ay noqon karaan oo ay ummadan faa'iido badan u soo hooyin karaan inta caruurteena iyo kuwa ka sii dambeeya iyo kuwa jiilalka ka sii dambeeyaba ay ka faa'iideysan doonaan sidaa daraadeed baanu juhdi iyo waqti iyo maalba u gelinay in lascale la soo shax saaro adduunka la tuso heritage site-yada adduunka ka mid noqoto markaa exhibition-kan maanta halkan lagu furayaana waxay ka mid tahay geedigaabay ka mid tahay walaalkeen yuusuf daahirood wada taqaaniin oo nin photographer amba sawir qaada ayaa sawiradaa soo qaaday kuwa halkan yaaliyo kuwa gallery-ga ku jiraba way leeyihiin waad daawan doontiin insha allah 5:15 markay gaadho ilaa 6:15 30 midhiro waxaynu yeelan doonaa su'aalo iyo jawaabo oo photographer-ka amba sawir qaadaha aad weydiin doontaan su'aalaha idinkaga soo dhaca marka daawanaysaan sawirada imikana way inoo furantay waa daawan kartiin kelmad baan siinayaa walaalkeen Yuusuf Daahir sawir qaadaha oo insha allah inagu soo dhaweynaya exhibition wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mahadsanidin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يدين شرفه. وادنا شرفتين وادنا مادين وتسقي ورنقا قشين وندين كم هاد علنيا. بان يدين كم هاد علنيا. انت صوص عتي انتي لنشوك تبع. وحي سؤاله أما كلام كلنا صورة إن شاء الله. حافنا وركاد ما بين النقص كوريسن دونا ونكو كل حق قادن دونا. إما كمدرسة ندين فور دونا ندين لكوسو بكتا. detailska wixii su'aala iyo wixii faale dheeraade aan aqoon ka kororsaday lascale anna waan idin wadaagay mar labaad iyo mar saddexaad ba Allah idin sharfo aad baan idinku mahad celinay launchka amba bilowgii bandhiga sawirada lascale intaan markaa u gelin su'aalaha iyo jawaabaha waxaan rabaa inaan halkan uga mahadnaqo wasaaradda
ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska oo runtii qayb ka ah dadaalkan laaskeel lagu dayactirayo lagu ilaalinayo magaceeda lagu weyneynayo si aynu guud ahaan meelaheena sooyaalka taariikhda amba heritage siteska somaliland ahmiyad weyn loo siiyo generationada jiilalka maanta jira loogu baraarujiyo si kuwa soo socdaana insha allah ay wax sooyaal looga tago dhaxal loogu reebo waxaan rabaa markaa inaan kelmad siiyo intaanan u gelin sawirqaadaha waxaan rabaa inaan kelmad siiyo maxamed xasan cali weji oo agaasimaha tv-ga qaranka jamhuuriyadda somaliland. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت ولكن سوق القادهن وقت قبضنا هوري إنه حاصل صور السوق أو صوره ويوسف صاهر وحلا وما صنت هاي وأنا كنت كودي رجلين واحد كذا waxaanu ka hadlaynaa waa xaruntii dhaqankeenu joognaaye dhaqankeena meelaha uu ka leeyahay weaknesseska ama uu ka jilicsiyey waxaa ka mid ah xagga sawirada ma lihin dareenka haddaynu nahay dadka af soomaaliga ku hadla inagoo qurba maha inta af soomaaliga ku hadashaa dareenka fahamka sawirka waxaa laga yaabaa hadda ulumaha kale inaad aragto sawir la kala siisanayo intaasoo milyan waa sawir waxaa laga yaabaa qof sawirkii madaxiisa yahay ama wax adiga markaa liyaabayso waxaad arkaysaa dad ku jira meelahan galleriga ee sawirrada yaaliin oo sawir wada daawanayo qosol rafanaya ama wada ilmaynaya waxay leeyihin waxa la yidhaaho umuusoodka sawirka picture appreciation baa lagu yahay qalaad inagu ma lihiin taa haddii markaa aynu bilownay hadda oo alxamdulilah rabbilcaalamiin waxaa se yaab lahaa qulumihii inaga horreeyey innaga ee awoowayaasheenii kumanaanka sannadood ka hor ku noolaa halkan ahaa inay iyagu lahaayeen dareenkaa inay lahaayeen oo ay sawir dareenkooda ku muujin oo aad arkayso sawirradaasi hadda mid walba fariin aynaan inagu fahmayn ayuu sidaa oo aynu u baahannahay inaynu aada u sii fahamno waa sawirrada gidaarka ku yaalla maaha wax la iskaga xarxariiqay oo meesha ee waxa weeye message waa fariimo tusaalooyin waanooyin iyo caqiidooyin iyo waxay aaminsanaayeen bay kulli ka wada hadlayaan ilaa maaha in qofku intuu halkaa iska xardhay inuu waxa macno la-aan ahay markaa horta bal intaynu fahmayno aynu marka hore ilaalino oo aynu dabeedna kaydino innaguna intaa anigu aan ugu aqoon yarahay aynu isku dayno inaynu indhaa furno oo xagga sawirrada eegno maalin baan galay dalkanaynu saarka nahay ee addis ababa ethoobiyan leeyahay xaruntiisa addis ababa ayaan safaaradda ingiriisku meel safaaradda mahe meesha ay fiisooyinka dadka ugu qorqoraane ee kambaniga ah oo ka soo horjeeda meel galleria oo sawiraan galay waxaa laygu leeyay soo sawir meeshaan iska sawiray marka sawirkii sawiraan arkay sawirro meesha ku yaalla waa boqorradii etoobiya marka laba sawir baan ka iibsaday sawir mililiga iyo mid xayla salaasaa islaantii meesha lahayd meesha waa 3 dabaq ayaa soo idaba taagan markii sawirkii lay duubayay laba sawir ayay tiri rumeerayo way u qaadan weeyaan Soomaaliya masalan I'm from Somaliland bas tuuli ma aan qof Soomaaliya oo iska daayisay daawanaya xitaa marka anigu waa ka duwanaa Soomaalida miyuu geela raaci jiray kuwii birta tumi jiraan marka waxa weeyaan waxaan ku eeday anigu xayla salaaseen iyo mililigba abtaan waa markaasay yaabtay iyana waa nansi iyana waa reeraha sheegta maxkamad tugan noqdo wasan queen of shaba boqorada ay ku abtirsadaan ee dhashay ee king Suleiman nabigeena cali abdul Suleiman u tagtay ee dabeedna uu guursaday ee abtirahaan waxay dhashay nansiga waa ayeeydiiba
وملكة السبع وأرويرو هل كي كتبتينا وأوبر قبل مركها سويك شديد ونقف صومالي وساو نوش يا جماعة أتياشين بالمايبان مكاي نقول سداسة نقول تاريخ إن تعلق له نقول هل كاكسو جدنا أيه المالي يروح هالكنا ما شاء الله وحول أحسن قلت كأدي استيقاظ وحهل الجولتان أدم شيء رجع لك ساكود عبي مين إن في السجن أنا وذي بره كدالي أيه نقول يسافرها وأوحى نسون هاي يحمل ويجه هالكذا حكت وين السلام عليكم mar walba uu maxamed xasan cali weji uu hadal jeediyo runtii cilmi badan baa anigu horta shakhsiyan aan ka korsadaa intii aan xarunta dhaqanka ee hargeysaan joogay kolley idinkuna ila mid baa tihiin xitaa markuu xarunta nagu soo booqday uu halkaan wada fadhiisan uu sheekaynayo sheekadiisu mar walba xikmad baa ku dheehan sheeko taariikhi ku dheehan tahay aqooni ku dheehan tahay cilmi buu ku gudbinayaa marka ilaahay ha fadilo ilaahay xafido inoo xafido isaga laftigiisu sida laaskeel heritage-keena u tahay buu maxamed xasan cali weji uu heritage-ka somaliland u yahay proud baan ku nahay adeer ilaahay ku xafido waxaan markaa anoo waqtiga idinka qaadin aan gudbayaa su-aalihii iyo jawaabihii sawirqaadaheena yuusuf daahir ayaa insha allah idinku wareejin doonaa wixii su-aaleed qabtiin waxayn cabdiraxmaan baa mikrofoonka idin keeni doona gacantaad taagi doontaan kadib 3-4 su-aalood marka la weydiiyo dan yuusuf baa hadli doonaa ilaa waqtiga 6:15 insha allah eedaanka maqribka hor ayaynu sessionka aynu qaadan doonaa aad baad wada mahadsantihiin mar labaad السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركل وين كود المهد علينا يا وقتين يو سيدا النص وشرفتين وحن نرتو مهد علينا شغالها يم مسؤولين تحرنتا تعب كونوا دندل أنتو مو صورة قلين وزارة جناحسية يو دالحيسكا رولكا يدون كل هذا هاي gaar ahaan waxaan si gaar ugu sii mahad celinayaa kruuga xaruntan ka shaqeeyo runtii saaka 7:80 shaqada soo galay aad ilaa 5 galabnimo aad ku qaylinayso ood mar walba amar siinayso taada u sheegayso kuu ordayo kuu shaqaynayo wax dad leeyahay dad uga shaqaynayso kula wada way adagtay sida lagu helaa marka mahad horta aad u badan baan u celinayaa kala mid baan دوني أنا مسكح له قردان بالله عليك مركا حفتية وقيمه وليه هاي السيئة قف وحكوية هيريتج كيت إنه شيء دي كوية ما أنت 99.9% سيدا إنه أردنا هاي دول كان شنطة بقولي أنت كبدنا سايت historicalka ah ee 10,000 5,000 3,000 iyo in kan badanba taariikhdoodu ay tahay ma aaminsan tahay in ajaanibku inaga badiyo ina soo booqdaa daan intaynu u dhalatay ku nool iyagaa inooga lex jeclo badan iyagaa xifdiya iyagaa inooga aqoon badan sadly inagu waxaad moodaaba inaynu jihaad kula jirno faratadeedii dhaawac u geyshisadeedii yacni ab ilmaha dhashaa ilmuhu sii dhalo dhaxalkiisii iyo wixiisii weeye anuu aad baan u warwaraa waxaan u warwaraa dadkii waxaan lahaa dadkii taariikhdan lahaa iyo taariikhdii horta hays yeeshaan dee 18 May way ka weyntay Somaliland adiguna waad ka weyntay 1960 iyo waqtigii Ingiriiskii way ka weyntay Somaliland Ottomanskii bay ka weyntay Somaliland waxay ku abtirsataa 10,000 oo sannadood yeelkadeeda madimka dhalatay adigu
laakiin dhulkan aynu nasiibka u yeelanay ilaahay nagu beeray wuu cimri weyn yahay and it's yet to be discovered waxba lagama arag anuu markaan tambarkaygu cirka tago een jaamacarkaan miirsadaa ya dabeedna sidii kaalin shidaal baan ku lexdaa on shidaal ka qaataa waxa uu dulqaadka u yeeshay waxa uu samirka u yeeshay qorfo bannaan dhul cidla ah haddana 10,000 sannadood ka turjumaya war ninka 7,000 sannadood laba dhagax isdul saaree tilmaam ku sameeyey ay weli isdul saaran yihiin anna seeskii guriga halkan loo sameeyey habeen walba mid looga warwarayay inuu deyrku ku duma reer ku dhex jiray subxaan waqaadir itaaliyariya waa the opposite haddaba waxaad ogaataa inaad dunidan ka facweyn tahay adigaa kan somalilanderka ahi in aad dadkan dunida kula jooga ka facweyn tahay bal horta naftaada u sheeg madowga maraykan baa markuu jesse jackson la hadlayay wuxuu ku yidhaahdaa waxaad iga daba tidhaahdaan anigu qof baan ahay dabeedna waan yaabay wuxuu dadkan saa ugula hadlayaa waa in la toosiyaa oo horta inuu qof yahay loo sheegaa dabadeedna wixii kale la idhahdaa waad la siman tahay ummaddanna ya 3 jeer iga daba dhaha buu yidhi anigu inaan qof ahay oo tolo markii hore maxaan ahaatee waa qof lasoo gumaystay waa qof lasoo dhibay waa qof midab kala sooc iyo dee nolol adag ku soo baxay innaga maxaa laynoo toosinaya laynoo leeyay qof baa tahay oo reer somaliland baa too taariikhdaadu waa cimrigaasii jirtaa ma aha waan ku dhex noollahay meelaha qaar ba ay qaar balloodhaysteen oo isa isku xidheen safe by the belt Mohammed and I'm both khiyadna and and ilaa waxaynu leenahay aynu barano waxaynu leenahay ma aha qasab inaad degree ku qaadato archaeologiska iyo archaeologiga laakiin dee self taught baa jira kun waxbaad isbari kartaa and 50-something stateska ay somaliland ku jirtay qaaradan kugula nool sudan iyo egypt iyo in yar mooye dee waxaad haysta ma haystaan xadaarad baad haysataa civilization fog baad ka soo jeedaa bal horta waxaynu ka bilaabnaa anigu qof baan ahay mise waxaan nafta u sheegnaa inaynu ka xadaarisannahay oo ummaddan aynu ka facweynahay oo aynu dee diyaarunahay waxaynu inaynu xafdino anugu I for one qof ahaan waan warwaraa markaan dhulkaa joogo waxaan sidan u wanaagsan ee haddana dayacan ma dadkii baa la isku soo celin oo la educate garayn ma wixii baa la ilaalin oo lagu tabci dabeedna anoo faraha iskula sheegaysanaya markaan jaamaco miir qabaa shaydaanka iska naar waxba ma jiraan dad riija baynu nahay alxamdulilah aynu baranno arday baynu wada nahay aynu ilaashano sayidka qaar leeyoo kala ka mid ah aataartii ku dhex taalla qaybna waxay ku dhex jirtaa gurigii madaxtooyada oo deyr baa lagu wareejiyey gas house-kii intii kalena dibadday taallaa dee waayo markaad intan deyr ku xidhay intan kale qofkaad uga tagtay isna uu ku faygari oo uu ku ciyaara so grassrootska in laga soo bilaabo in iskuullada laga soo bilaabo in 75% ka dhalinyaro iyo carruur ee dalkan usoo kacaya la educate garayo halkan looga bilaabo taariikhda inta taariikhaanay shaqo ku lahayn looga sheekeynayo la xafidsiinayo iyo gabaye iyo reere iyo wax isku soo baaba'ay oo ilaahay intan ka badbaadiyey maskaxdaynu soo yaro celino u soo noqonno waxaynu nahay iyo waxaynu leenahay ilaahayna siiyey subxaanahu watacaala we are rich hadday heritage iyo culture noqoto waxba dalku ugama baahnaa hadday shidaal leeyahay hadduu macdan leeyahay intanaa ku filan marka maanta nafta waxaa u sheegtan horta inaa qani tihiin dad qaniya oo taariikh qaniya ka soo jeeda intaas may adag ma aha dee in dugsiyada ku yaalaan adduun fara badan wax ka weyn adduun baa ku yaala waad ka fac weyn tahay khayrka waad ka taariikh horeysaa and at the end of the day halkanaa la isugu imanaya wax la qarqariyaba waxaa waa intaad ka fahmaysa adigu yaad ka baranayso kuwii weli miyay tooseen weli miyay ogaadeen waxoodii weli miyay barteen barkimada usii hagaajiyo
inuu huwanayana saan ugu huwiyo lama doonayo inaad toosto laakiin waa inaynu toosnaa waxaynu leenahay magacaygu waa axmed aadan aad baan ugu mahad celinayaa waxa fiican qabatay intaan su-aasha weydiin waxaan umika ugu mahad celinayaa jaac muuse jaamac iyo agaasimaha tv-ga qaranka weji intaa dabadeed su-aasha weydiin waxayn in programkan caqabaadkii ama challengeskii ka hor yimid waxaan kala weydiinayaa sawirradii ugu cajiibsanaa ama kuwa ugu quruxda badnaa eed samaysay intii aad weyday programka aad baad mahadsan mahadsanid walaal horta hawl lay diro tii ugu adkaytanay ahayd waan xasuustaa labada goosay dambaan isku qabtay maalintii jaamac markaan xafiiska wada hadalnay ummaddaas oo dhan baa meesha martee yuusufow adigu maxaad dee inaad wax ka soo qabataan la doonayaa maxaad ka soo qabanaysaa dee ma same picture meel Washington Post Guardiankii New York Times Financial Times international photographers 20-30 years ku soo jiray photography British Museum meelay kaaga horreeyeen oy kaaga khibrad badan yihiin oo waqti intan ay dhaantay ay sawir ka soo qaadeen marka lagu diro cuntaduna kaa degi mayso gamina mayso habeen baan u hooyanayaa baan habeennimadii sidii aan doonayay wax waan u waayay laakiin wax kalaan ka kororsaday aroornimadii wixii aan doonayay waan waayay laakiin wax kalaan ka kororsaday barqadii baan anigii ka marada isla jaan qaadnay item inaan horta anigu u arko una fahmo dabadeedna aan wax uga qaado fariintaan soo gudbinayaana ay noqoto inta niyadda inayna ka wanaagsanaataba haddii waqtigu saamaxay dabayl xoogaa dhacaysay dhas badan baa jiray haddana aniga dee assignment baa lay diray waxaasoo dad ilaa national geographigu iiga horreeyey xanuunkeeday leedahay marka horta haddaan taa ka soo badbaadiyo nasiib baan leeyahay ta labaad de wixii iigu adkaa maalin walba wuxuu noqonayaa dadka 10,000 sannadood iyo dhaxalkay ka tageen aanan weli rafiil garayn anigu shakhsiyan waxna ka garanayn waxaa laga yaabaa sidii inoo kale inaan ku cararo sacan iyo geesahan iyo tilmaantiisan laakiin wax badan baa ku jira sawirka derbigana ku samaysan yahay xayawaan baa ku hoos samaysan ay ku hoos sameeyeen very tricky and smart bay ahaan ilaahay maskaxda uu siiyey way nagu yartay malaayma waxay samaynayeen dadkaas yani waxyaalo badan oo aartoon la refiil garayn bay samaynayeen haddii meel sawira laga qaadayana anu ma garanayo somaliland meel ka challenge adag oo ka taca badan waayo horta dee barashadeedii iyo fahamkeedii waxanaaba muhiimaba and it's yet to be discovered wax badan in yarun baynu ka aragnay marka dee dhankaa weli arday baan ka ahay dadaalaya sawir wanaagsanna dee weli ma hayo weli waan raadinaya wax wanaagsan ismaan mahadin ma dhowi magacaygu cabdibaas sheekh bashiir yuusuf daahir dhammaantiin galab wanaagsan hal koban baan ku yaro darsanaya oo ku yaro adkeynaya yacni saynu taariikhda u lumino ama aasaarta muddo ku beegan 2014 ayaa waxaanu helnay aasaar ku saabsan aniga uga sheekh bashiir xaafad maxadka adhoo burca ku taalla sawirkeedii waan hayaa markaa waa sibid kaabad weyn kaabadda waxaa la qoray 1945 baa la qoray soo marka kaabadan markaa waa sawiray laakiin kaabaddii maadaama aan meesha ka saarna wadda ahay bakhaar baan dhignay bakhaarkii adigu nin wadaadadan damba aan magaranahay baan dhignay sibid buu mariyey
iminka way dhimatay kaabad sawirkii baa laakiin haya marka muhiimadda sawirku leeyahay ayay muujinaysaa inaan la dhaho sarisaar isaguna saylac buu soo sawirayey qiblateenu dhinac dumayo haddana sanada kabacdi dhinaci kala dumayo marka aad bay muhiim u tahay aad baana kugu dhiirigelinayaa aad baad umaqsan tahay inaad nala wadaagto aasaartaas intaanay baabi'in ama isbedel ku dhicin aadna waan kaaga mahad celinayaa dadaalka muddada badan aad kusoo bixisay anigu waqtiyadaydii wax markaad qiimaha uu leeyahay aad garan karto wax weeyaan waqtigaan arki jiray anigu waxaan u aqaanay case deetana waxa la dhihi jiray reerkii laaskeel buu ka ag dhow yahay yacnihii qiimo agtayda kamu lahayn maanta ka hor welina ismaan odhan jirin waqtiyada ka mida laaskeel baad arki doonta oo meel lagu soo hadal qaadayo sababtaas waxa weeyaan qiimaha ayaabaanan garanahaynin 12 sano ka hor waxaan markaa kula talin lahaa bahda ganacsiga iyo dalxiiska inay istaraatiijiyadooda sanadlaha ah ay ku darsadaan si deegaanka dadka degan workshopyo iyo programmo loogu sameeyo inay fahmaan qiimaha uu leeyahay waayo anigu geed 12 sano ka hor halkaa iminka casaha ani waxaan u aqaanay dee dhagax weyn oo mina yacnihii ilaahay unu keenay oo case deetana waxa la dhihi jiray casaha xoolaha kasoo raga ama casahaas buu hebel ka dambeeya yacni qiimo agtayda kamay lahayn marka dadka deegaanka meesha leh hala fahansiiyo oo istaraatiijiyadaha lagu darsado iyo qorshaha aad baad u mahadsan tahay dadaalkaad gelisay iyo saad noo fahansiisay jazaaka allahu khayr بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مانتين به إلهي سبحانه وتعالى مهاد سكالي مدشان قيمها بدن سكوكين كيني دمانتي مرلوات كي مرصدحات كوحان مهادا لسوكو بكلين وعلنا يا جامع مصر جامع قدومية حرونتا أجاسما حرونتا هي دمان هالوضين حرونتا هو يمو سورة قليين قوبتن سكوكو نمانو مرر بدن بندقية بدن oo dhalinyarada loogu danaynayo ama haddii ay taariikh noqoto aasaar in lasoo bandhigo sidoo kale haddii ay noqoto inay dhalinyarada hal abuurkii ay ku soo bandhigaan hal abuurkooga lacag la-aan iyo goob ay firi u yihiin goortii doonaan ay dalbanayaan run ahaantii aad baan uga mahad celinayaa dhalinyaradan bar waxaan kula talinayaa insha allah maadaama jaamac juhdiga ay noo galay lahay ka raali ahaaday bal inaynu abaalkiisa abaal lama gudeen aynu bal inuunu isku dayno in aynu xarunta abaalkeygii usoo celino sidoo kale waxaan u mahad celinayaa yuusuf daahir oo ka mid ah shakhsiyaadkan aadka ugu daydo in kulley meelaha kala socdo agaasimahan aad baan u salaamaya isagana oo isaguna ka mid ah shakhsiyaadka haddii goob lagu soo casuumo waqtigeega imaada ee kaba soo horeeyaba oo halka dowladda noogu jira shakhsiga keliya tee madal kasta imaada aad iyo aad baad u mahadsan tahay haddaanu imaado su-aashayda kolley su-aashaydu mid unbay daaran tahay maalmaha ka mid ah waxaan tegey horaantii 19kiiba waxaan tegey laaskeel ma aqaano anugu laaskeel waxay tahay balse waxaana loogu saaray si aanu dalka wax uga soo barano goobaha aasaartaan usoo barano markii aan meesha tegey aanu galnay buurahaas aanu kornay aanu tagnay intaan tegi karanay waxa joogay niman baa joogay nimankan baa waxay kuu sheegayaan waxyaabahan waxay yihiin lagama yaabo inuu qofkan meesha jooga uu ku siiyo information badan uu kaa siiyo meeshan marka jaamac iyo yuusufo hawshan isku xilqaamay iyo weliba dowladda weliba ta lahayd hawshan waxaanu ka codsanaa maadaama dhalinyaranahay annaga iyo kuwa naga dambeeyaba sideebaa markay meeshaa tagaan iyo iyagoo halkan joogaba ay information badan iyo qiimaha ay aasaartan leedahay aanu u ogaan karnaa kuwan iyo kuwa kaleba aad bay umahadsantihin dhammaantiin aad baan kugu mahad celinayaa su-aashaada horta dhammaanteen dee in aqoon laynoo kordhiyo waynu wada baahannahay intaynu maanta haysanaa waxa weeye dee lama gudi karo abaalka dadka goobaha taariikhooga ha noqoto goobo kale ha noqoto abaalkooda lama gudi karo
intensive course-ka qaateen iyo fahamka intan ay fahmeen iyo turjumaaddoodana waa basics nagu filan oo qof dee aan wixii aqoon u lahaynba ku filan sida u xifdiyaan iyo sida u ilaaliyaan marka horta intay qabteen dee lama gudi karo in aqoonta loo kordhiyo de kulligeen waynu wada baahanay iyagana in laga bilaabo aqoonta loo kordhiyo waa muhiim insha allah waxaan rajeynaya inaynu wax badan ka baahi bixi doono haddii ilaahay yidhaahdo بسم الله magacaygu waa buuni anuu erey mahadnaq qabaar u kacay markaan sawir ereyga sawir iyo magaca Yuusuf Daahir aniga synonymous bay noqdaan marka qaarkood markaan sawir maqlo Yuusuf baa soo dhaca Yuusuf saddex shay oo cajiib ah baan ka bartay patriotism ka han leeyahay waa shakhsiyaadka Soomaaliland ugu qiimaha badan haddii asalaam qolooyinkii la oran jiray gacan iyo qori inoogu dagaalameen Yuusuf wuxuu inoogu dagaalamay kamaradiisa Soomaaliland wuxuu taray dad badan baan taray aad baan ugu mahadnaqayaa talabaad waxa weeye Soomaaliland photo industry-ga Yuusuf oo shaqsigii bilaabay kamarada awal waqtiyada hore saxaafadda ay jirtay waa la duubi jiray muuqaalada la duubi jiray war baa la soo dhigi jiray laakiin markii Yuusuf la arkay baa la arkay waxa la yiraahdo photo industry Soomaaliland taana waan ugu mahadnaqayaa saddexaadna waa tan maanta u fadhino Yuusuf wuxuu noqday shakhsi aasaarta Soomaaliland inoo ururiya anuu reegiila waan ahay dhagax kureys ay baray Yuusuf aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan leenahay hawshaadna hayso waan ku ognahay Yuusuf oo la soco intaasaan ka aad baan mahadsantiin mahadsanid Booni marka hore asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhammaan madda iyo Yuusuf iyo jaamac muuse jaamac intaba waan u mahadnaqayaa salaan gaaran oo siinaya intaa ka sakow alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin horta niyo waan waxaan la yaabaa oon la qoslaa tad miyaad aragtay xoolahoogii dhoofinaya caana boodhana la soo degay run ahaantii waa wax lala yaabo caafimaadka marka la baranayo dadka bini aadanka labaa loo qaybiyaa bismetic iyo optimistic deetana aanu isma idhaahdo waa qof positive-ka ka fikirayaba qofkaas qof xoolihiisii dhoofinaya caana boodhana la soo degaya run ahaantii waa wax aad iyo aad loola yaabo mid kalaa jirta waxaa jirta waxaynu baranaa dhammaanteed waxbarashaynu baranaa waxaan kasoo bilownaa primary baan kasoo bilownaa secondary ilaa heer jaamacadi primaryga ka kaalay waa aasaaskii waxaa lagu barayaa waa wax noloshaadii dee basicii lagaaga soo dhisayo laakiin secondary maalinta lagu soo daro ma arag meel aasaar lagu dhigayo iyo meel Soomaali toona lagu barayo all waa English laba maado marka laga reebo hal su'aal baan ku weydiinaya su-aashaasi waxay tahay intaad sawirada ku gudu jirtay dalka oo dhan aasaarta kaliya ma sawir kasta oo kaa soo horbaxay ma jiraan sawirro qaar dareen kugu abuuray iyo sawirro qaar aad ka dhex turjumatay inay taariikh iyo aasaas iyo lafdhabar ay ugu leeyihiin Somaliland wassalaamu calaykum mahadsanid ha waxaa jira waxaan hawl kuugu jirin oo ku kalifaa hawshan maxaa kuu diray waad isweydiinaysaa assignmentkaagu intan u ahaa hawshan maxaa kuu galay waxaa kuu galay adiga faraha la galay ee markii hore kuwii midabka ahaa ee imika wixii aad ka haysay aada uga gudbisay dee maxaa ka horreeyey buu qofku isweydiinaya maxaa ka horreeyey markaa siday inima iniigu dhiibaysay baa waxaan arkay anigoo oday ingiriisa oo 100 jira oo photographer ahaayoo halkan soo maray imtixaamaya oo uu leeyahay adeer iminka da' baan ahay oon leeyahay dhaxalkaygii badaysa horta waxii sheegay wiiggii mar buu soo jawaabi jiray waxaa odayga aanu kalifayeen u dhibaya adiga wax uga reeb si uu u helo taariikhdiisii oo isdaba taxano sida halkaas sawirradu ay ugu wareegsan yihiin gudaha panoramic u yihiin inuu wixiisii wada helo tii ingiriiskii tii waktigii Ottoman Empire-kii tii Silk Road-kii wixii ka wada horreeyey isku soo wada duubo cimri fogeynaan garanayn iyo maanta wixii la heli karayaba ama qoraal ha noqoto ama sawir ha noqoto laptopku markuu cuslaado dhaqaaq waayo halkan raadi mid kale soo diyaar waxaagii marsku yaro toltolaya anigoo ardayaana ah urslee balkan kaa dambeeya therefore waxaan is arkay anigoo messenger dirana
waxaan mahad leeyahay jaamac dee maan joogeen maanta runta marka laisku sheegayay iyo dhowr shaksiyoo kale iga walaanan joogeen laakiin dad baa meesha dee waxaygii waan uga imi iyo taan watay ii gaarka ahayd cidunbuu culaysku ku dhacaa cidunbuu tacab ku dhacaa umana arka inaan wax saa'ida qabanayo umana arka inaan cid ka fidalanahay laakiin waxaynu wada leenahay uma dhinacayga annaa waayo dee dalkan iyo dadkiisa cadowgoodu wuu badan yahay runtu way fiican tahay ka intan maanta halkan kuu sameeyey intan kuu suurtageliyey raafkaa damba intaa laga jafaya anagu waaban ka helaaba nagadeema waayo waxbaan sii kordhiyaa pressurku markuu batana waa nigi idin sheegay dee isagan ula imaataa cadhadan dhahda iga neefi lumi oo cid kalaa yeelan waay bismillah aad baan u salaamayaa maamulka xarunta iyo marti sharafta iyo yuusuf oo aan maanta hawshiisa inaynu daawanno aynu halkan u joogno runtii anu waxaan ka mid ahay team uu tababar tour guide uga socdo xarunta dhaqanka oo maalmihii u dambeysay maanta uu soo gabagaboobay waxaan kaloo hawsheeda iyo as part of the training ku jirtay in aanu tagnay lascale oo aanu soo aragnay runtii waxaan sheegi karaa difference-ka magaranaysa waxa markaad live u tagto meesha iyo markaad sawir ka aragto waxyaabaha u kala dhexeeya farqiga u dhexeeya waayo oo ay sababtay muhiim u tahay in la sawiraa waxaa ka mid ah in magaranaysaa wixii ay noqonayso record oo aad mar ayaala markaad u baahataba aad daawanayso aad kusoo noqonayso oo ay noqonayso waxaanad ka xiiso geynin iyadoo muhiim tahayna inaad xarunta ama goobtii aad tagto su-aal baan qabaayo oon weydiinayaa su-aashaydu waxay tahay hawshaadan kolley waxay contribution badan ka qaadanaysaa in ay tourism industrygu ay hore u socoto iyo dalxiisayaashu ama local ha noqdaan ama foreign ha noqdaan weliba iminka shaqada halkan oo kale ka socota maanta oo kale waxaa laga yaabaa dad badan markay arkaan sawirada quruxda badan iyo taariikhda iyo soo jireenka aynu leenahay inay berri toole tagaan oo ay goostaan garanaysaay tigidhka baska oo ay isxaadiriyaan oo soo arkaan marka specifically muxuu tourismka dalxiisaha caalamiga ee internationalka muxuu sidee buu wax ugu contribute garayn karaa sidee buu wax u tari karaa su-aashaasaan ku weydiinaya waad mahadsan tahay sidaan markii hore idiin sheegay ajaanibku iyagaaba inooga more curious ahoo aada inooga baahi badan inay laasgeeliyo in badan oo kale ay arkaanba waynu ka soo fognahay dhulka fog baynu joognaa inagu dhulka wixii ay yaalaanna waa dhul aada uga fog dunidu maanta technolojiyada big bay ka gaadhay oo halkii ugu sarreysay ka joogtaa dee in ama life la isku arkayo in kii riyaha la joogay iyo kii geela la joogaba ay telefon sitaan yacni big ba halkaa laga gaadhay waxaan se big iyo meel u dhow toonna laga gaadhin taariikhtan qadiimka ah tiina maanta aday ku dhex taallaa way kaaga baahi badan yihiin iyagaana kaaga lexjeelo badan siday u fidiyaan ee u gudbiyaan dee dalkana dhaqaaliya wax walba uga soo kordhaya Good evening. My name is Tijani Ajara from CBA TV. My question is, as a professional photographer, what are the challenges you faced in documenting last skill? And how would you advise other photographers
landscape photographers, event photographers, to continue to document African ingenious sites. Thank you. Well, thanks. Photographers are made for challenge. It's part of their life, whether it's physical, whether it's verbal, whether it's Mother Nature. It's our job to face the challenge. Africa in general. Africa is the mother of this earth. It's old. It's where the baby walk started. It's rich. Sadly, it is own people have no clue. But others, it's sort of like Westerners are more familiar with this, but Africans are more interested in Paris and London rather than their own rich heritage. Sort of the immigration is two phases. Africans on their way to the West, and Westerners are on their way back, taking over. They don't want you to be the rich one. They don't want you to be the oldest one of this heritage. Nobody wants to reveal such rich and old history. But it's that we have to educate our own people first. We are messengers, and our goal is to spread the word, to share the message, to show them the value of what we have. So education is the main important thing first. And it should start from primary, grassroots. Rather than teaching them Babylon and other history that they don't belong, teach their own history. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم كنت aad baan ugu faraxsanahay guud ahaanba dadkeena sharafta leh ka soo qayb galay wada xiisaynaya inay daawadaan afaartii iyo raadkii ummaddoodii hore ay ka tageen gaar ahaan Malaasgeel ninka kameramaanka ah isagoo waqtiga ku lumiyay ee soo sawirayna waxaan leeyahay isaguna waxa weeyaan taariikh cusub oo ah aan ku mahadinayno iyo taariikhdii hore oo adkaysay sideedana ummaddan geeska Afrika ku nool waa ummadda Soomaaliland waxay leedahay taariikh fac weyn oo adduunka oo dhan u qirsan yahay hadday maanta dareemeenna way u kaceen oo rag u guntadayna waxaan leenahay ilaahay ku guuleeyay raadka maanta la baaray ee Laasgeel ka bilaabmay ee meelaha kale la sheegay tirada badan laga helay waa dadkii noolaa kumanaanka sanadood ka hor halkan ku noolaa horumarka ay ku tallaabsadeen iyo raadka ay ka tageen waa mid adduunka oo dhan qirsan yahay waxaynu ka soo jeednaa dal qaaliya iyo dad qaaliya raadkooda ilaahay hayna tuso innaguna waa ilaahay naga dhigo kuwa ku faana ee baadi doona rugtanaynu fadhino ee aynu hadda isugu nimina waa rugta iyana u gudtatay arrintaasi jaac musana waxaan leenahay allah ka abalmariyo ibraahimna waxaan leenahay halkaa ka sii wad annaguna waxaan leenahay insha allah waxay soo saari doontaa waxaynu isu nahay iyo taariikhda naga dhaxaysa waana mahadsantiin بسم الله الرحمن الرحيم waxaan isugu nimay maanta kulankani oo ay xarunta dhaqanka ay soo qaban qaabisay mid ka mid ah talaabooyinkii runtii ugu muhiimsanaa aad baan ugu faraxsanahay in midhihii shaqadii Yuusuf Daahir iyo dhalinyarada kale faraha badan ee farshaxanka ah ee shaxanyahanka ah ee gabayaaga ah ee filim sameeyayaasha ah in ay wixii ay soo saareen ay maanta aynu midhahoodii aragno qaybtan waa qaybtii ugu horeysay toddobaadka soo socda haddii alla idmo waxaynu mar labaad isugu noqon doonaa inaynu aflaan aynu egno filimaan laga sameeyey Laasgeel waxaa ku xigi doona sawir gamceed Laasgeel laga sameeyey intaasoo dhan hal wax bay wadaagaan waxaa jiri doona gabay suugaan maanso laga tiriyey Laasgeel intaasoo dhan waxay haddaba muhiimadeedu ay tahay in aynu isbarbar dhigno oo aynu xiriirka ka dhaxaysiino farshaxankii iyo fanaankii 7,000 sannadood ka hor sameeyey sawirrada noocan ah iyo fanaanka maanta fanaanku ereyga had iyo jeer musiga baa lagu xidhaayay fanaanku waa qof kasta oo wax shaxana sameeya waa farshaxanka marka dadka caynkaas waxaan ugu talagalay in la isbarbar dhigo la eego maxaynu ku sheegi karaa Laasgeel waxaynu ku sheegi karaa
inaynu u gabayno laaskiil waxaynu u sheegi karaa inaynu sawirro laaskiil waxaynu u sheegi karaa inaynu farshaxan ku samayno laaskiil waxaynu ku sheegi karaa inaynu filin ka samayno intaasoo dhan waxay u taagan tahay in dhallinyarada maanta joogta ee faca soo koraya la baro ummaddani halkay ka soo jeedo waayo ummaddani markay ogaato halkay ka soo jeedo ayay garan doontaa halkay u socotana sidaa daraaddeed waxaa farxad weyn runtii aynan maanta qayb ka noqdo dhammaan howlwadanada xarunta dhaqanka ee hargeysa sawir qaadaha iyo cid alaali cidkiisa gacan ka geysatay gaar ahaan wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska waxaan ugu mahadnaqayaa waxa qurux badan ka soo baxay aad baan ugu faraxsanahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu